aynu ku bilowno wararka ka imaanaya deegaanka ka xandhaale ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in maanta mar kale uu dagaal halkaas uu ka qarxay kaasi u dhaxeeya laba maleeshiyo beleed sida warkan uu ku soo diray wariyaheena Maxamed Cabduule Tooxow deegaanka ka xandhaale ee ka tirsan gobolka Galgaduud maanta waxaa mar kale ka dhacay dagaal u dhaxeeya laba maleeshiyo beleed oo wada deegaankaasi kuwaasi oo wali isku haysta arrimaha la xiriira dhul daaqsimeedka dadka deegaanka ka xandhaale ku sugan oo aanu xiriir la sameynay ayaa inoo sheegay in dagaalku uu dhacay isla markaasina la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan una jiro khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac hase yeeshee ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka maanta ka dhacay deegaanka ka xandhaale waxaana wararku intaasi ku darayaan in dhaawacyadii dagaalka waxyeelada ka soo gaadhay loo qaaday degmooyinka Cabudwaaq iyo sidoo kale Cadaado oo ka tirsan gobolka Galgaduud mas'uuliyiinta sare ee maamulka Galmudug ayaa dhowr jeer hore ku baaqay in la joojiyo dagaalada ka soo cusboonaaday deegaanka ka xandhaale waxaana odayaasha labada dhinac ayaa ka codsadeen inay joojiyaan colaadda isla markaana miiska wadahadalka yimaadaan si loo dhameeyo colaadaha ka jira deegaanka ka xandhaale ilaa iyo hadda ma jirto wali cid kala dhex gashay maleeshiyaadka ku dagaalamaya deegaanka ka xandhaale ee gobolka Galgaduud deegaanka ka xandhaale ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxa dhowr jeer oo hore ku dagaalamaya maleeshiyaad iyadoo maanta mar kale halkaasi uu ka dhacay dagaal xooggan oo ilaa iyo iminka socda Maxamed Cabduule Tooxow idaacada kulmiye Dulsamareeb taliyihii hore ee ciidamada Uganda ee Soomaaliya jooga ayaa sheegay in ay ku guul dareysteen ka hortagga qatarta al-shabaab Axmed Maxamed Ibraahim ayaa ka waramaya taliyihii hore ee ciidamada Uganda ee qaybta ka howlgalka AMISOM Paul Lokech oo kadib markii uu xilka wareejiyay ka hadlay howlgalka ka socda Soomaaliya ayaa sheegay in ku guul dareysteen ka hortagga iyo yareynta halista weerarada al-shabaab General Paul Lokech ayaa waxa uu sheegay in ay jirto qatarta al-shabaab ee weerarada iyo sidoo kale bambaanooyinka ayna ku guul dareysteen inay ka hortagaan balse waxa uu raaciyay in ay sii wadayaan dadaalada ka qayb ahaanshaha howlgalka AMISOM Al-Shabaab is IED improvise explosive devices to target our MSR. Then they also have VIDs, vehicle-bound explosive devices. Al-Shabaab waa qatar waxaana ay sameeyaan qataro ka dhasha weeraro iyo sidoo kale bambaanooyin iyo qaraxyo gawaari lagu soo xiray oo ay xarumaheena la beegsadaan sidoo kale xarumaha shacabka ay ka geystaan weeraro tani waxay ka damacsan yihiin inay cabsi abuuraan walina ciidamada Uganda ma aysan ku guuleysan inay ka hortagaan waan sii wadi doonaa dadaalka Still UPDF has not wavered from all this we continue to ensure that ciidamada ka socda Uganda ayaa muddada uu socda howlgalka AMISOM ee ka badan 10 sano qayb ka ah waxaana dhowr jeer ay Uganda bedeshay taliyaha ciidamada ka jooga Soomaaliya taliyaha cusub ee xilka kala wareegay Paul Lokech ayaana mar uu hadlay sidoo kale waxa uu sheegay in meesha uu ka sii wadi doono howshii socotay Puntland ayaa cabsi ka qabta in lacag lagu qalqalgelinayo doorashada la geeyo deegaanada maamulkaasi dhanka kalena ciidamadii ugu badnaa ayaa la dhigay garoomada diyaaradaha ee deegaanada maamulkaasi Umar Maxamed Sooman ayaa warkan faafahinaya Puntland waxay lugta la galaysaa doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyadoo qorshaha qabashada doorashadana loo balansan yahay 8 bisha koobaad sanadka 2019 si loo gaaro maalinta ay ku beegan tahay qabashada doorashada waxaa xilligan soconaya ololaha iyo qabanqaabadii ugu dambeeyay ee doorashada ku beegan dadka ku nool gudaha Puntland qaarkood waxay xilligan qabaan walwal iyo cabsi xoogan oo ku aadan in ay doorashadu qalqal gasho cabsida taagan xilligan waxay tahay in shakhsiyaadda macsan qalqalgelinta doorashada ay doonayaan in lacago xad dhaaf ah ay geliyaan gudaha deegaanada Puntland haddaba markii uu soo baxay shakiga dhaqaalaha la doonayo in la geliyo gudaha Puntland waxay saraakiisha ciidamadu gaar ahaan kuwa u xil saaran amniga doorashada ay qaateen kulamo ay ku doonayaan sidii ay arrimahaasi ay kaga hortagi lahaayeen saraakiisha ayaa ku amray ciidamadu in ay heegan buuxa ay sameeyaan si ay kaga hortagaan shakhsiyaad ay madaxtooyadu sheegtay in ay doonayaan in lacago ay geliyaan gudaha deegaanada Puntland taasi oo la doonayo in doorashada lagu qalqalgeliyo ciidamo dheeraad ayaa la dhigay garoomada diyaaradaha Garowe Boosaaso iyo Gaalkacyo halkaas oo lacagaha looga shakisan yahay in laga dejiyo
saraakiisha maysan soo magacaabin shakhsiyaadka madaxtooyada ay ku sheegtay in ay damacsan yihiin in ay lacagta ay geliyaan gudaha deegaanadaasi. ha yeeshee arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyadoo isha lagu wada hayo qabanqaabada doorashada iyo siday u socoto, waxaana in ka badan 30 xubnood ay yihiin xubnaha xilligan u taagan qabashada xilka madaxweynaha maamulka Puntland. markaana aan eegno wararka gobolka Shabeellada Hoose. askar ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo qof shacab ah ayaa maanta waxaa lagu dilay bartamaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. wariyaheena Axmed Abuukar Sabriye oo gobolkaasi jooga ayaa warkan inoo soo diray. dilkan oo ka dhacay bartamaha suuqa weyn ee degmada Afgooye gaar ahaan qaybta lagu iibiyo qudaarta ayay kooxo ku huweysan bastooladu u geysteen 2 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale qof kale oo shacab ahaa. 2 askari ee la dilay ayaa xilligaasi ku guda jiray qaadista lacag canshuur lagu tilmaamo taasi oo ay si joogto ah u bixiyaan dadka ku ganacsada qudaarta, waxaana qofka kale ee shacabka ahaa oo la dilay askartaas la sheegay in ay ahayd habeenay ka mid ah dadka qudaarta ku ganacsada iyadoona xilligaas ku howlaneed bixinta canshuurta sida joogtada ah ay ganacsatada qudaarta ku ganacsata u bixiyaan, sida ay idaacadda kulmiye u xaqiijiyeen goobjoogayaal halkaasi ka agdhowaa. kooxihii huweysnaa oo dilka geystay ayaa goobta isaga baxsaday, waxaana muddo kadib halkaasi soo gaaray askar ku sugnayd meel aan sidaa uga fogeyn goobta uu dilku ka dhacay, waxaana ay halkaasi ka qaadeen meydadka 2 askari oo ciidamada dowladda ka tirsanayd iyada oona habeenayda lala dilay askartaas ay qaadeen dadkii shacabka ahaa ee halkaasi ku sugnaa. dilka kadib ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa halkaasi waxa ay ka sameeyeen howlgalo ay ku sheegeen in ay ku baadigoobayaan kooxihii huweysnaa ee dilkaasi geystay. marar badan ay kooxo ku huweysan bastoolado sidan oo kale bartamaha suuqa qudaarta ee degmada Afgooye ugu dileen askar ka tirsanayd ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. walow dilka habeenayda ee kooxaha huweysan maanta ay u geysteen uu walwal ku abuuray dadka iibiyo qudaarta ee ka ganacsada suuqa qudaarta ee degmada Afgooye, maadaama aan hore looga arag kooxaha huweysan beegsashada dadka qudaarta ka ganacsada marka ay sidan oo kale dilalka u geystaan. militariga Soomaaliya ayaa howlgal lagu baadigoobayo xubno ka tirsan al-shabaab waxa ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Yuusuf Bakar Ibraahim ayaa warkan Shabeellaha Dhexe ka soo diray. ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta dhaqdhaqaaq ciidan oo lagu baadigoobayo dagaalamayaal ka tirsan xarakada al-shabaab waxay ka wadaan deegaano ka tirsan degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. deegaanka Ceelmuluq iyo deegaano kale oo ku dhow deegaankaas ay ciidamada ka wadaan dhaqdhaqaaqa ciidan ay ku baadigoobayaan al-shabaab, waxaana la sheegayaa inay tageen tuulooyin horey ay ugu sugnaayeen al-shabaab, balse al-shabaab ayaa isaga baxay deegaamadaasi markii ay ka warheleen inay kusoo wajahayeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanada ay ciidamada howlgalka ka wadaan ayaa ka baqdeen qaba dagaal dhex mara al-shabaab iyo ciidamada howlgalka wada. ciidamadan ayaa tagay xalay kadib markii shalay al-shabaab ay weerar ka geysteen deegaanka Ceelmuluq. maraan xiriir la sameynay saraakiisha horkacisa ciidamada militariga federaalka Soomaaliya ee howlgalka wada waxay sheegeen in ku raad joogaan dagaalamayaashii ka tirsanaa al-shabaab ee weerar ka geystay shalay deegaanka Ceelmuluq, isla markaana marka howlgalkooda ay soo dhameystaan ay warbaahinta kala hadli doonaan. shalay ayay al-shabaab weerar ka fuliyeen Ceelmuluq iyagoo dilay ilaa 2 qof oo shacab ah sida la sheegay, isla markaana qarxiyay ceelbiyood halkaasi ku yaalay. sidoo kale al-shabaab ayaa deegaanka ka watay sida dadka deegaanka ay sheegeen tiro dad ah oo u badnaa dhalinyaro, isla markaana aan la ogeyn ilaa hadda meesha ay la aadeen. deegaanka Ceelmuluq iyo deegaanada kale ee ku dhow ee ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay maanta dhaqdhaqaaqa ciidan ka wadaan waxaa muddo ka jirtay colaad beeleed u dhaxaysa 2 beelood oo duuraaga isla markaana halkaa wada degan. sidoo kale waxaa halkaas dhowr jeer ku dagaalamay maleeshiyada macaawisleyda iyo al-shabaab, iyadoo markii dambe maleeshiyada macaawisleyda ay al-shabaab ka saareen dhammaan deegaanadaasi, balse macaawisleyda ayaa isaga baxay maalmo ka hor deegaanadan, taasoo keentay in al-shabaab ay shalay weerar ka geystaan. Yuusuf Bakar Keenan, Shabeellaha Dhexe. maamulka gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle ayaa lagu eedeeyay in ay hurinayaan colaadda ka taagan duleedka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan oo ay 2 maleeshiyo beeleed ku dagaalameen. Maxamed Cabdiweli Tooxow ayaa gobolka Galgaduud warkan inooga soo diray. qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ku nool gobolka Hiiraan ayaa maamulka gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle ku eedeeyay horinta colaadaha ka jira deegaano hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, kuwaasi oo sheegay in dana gaar ah laga leeyahay iskoor keenida shacabka ku nool gobolka Hiiraan.
maxamuud cumar sheekh oo ka mid ah odayaasha ku nool deegaanada xiisadaha colaadeed ka jiraan ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in dagaal beeleedkii ka dhacay deegaano hoos dhaca degmada maxaas ayaa qayba ka ahaayeen ciidamo ka tirsan hirshabeelle sida uu hadalka u dhigay. waxaa waday oo dadkii shacabka ahay dhibaato u geystay niman maamulka hirshabeelle ah barasaabka gobolka hiiraan ciidamada hirshabeelle ayaa soo galay dagaalkii guryihii bay gubeen moobeeladii bay gabdhihii ka qaateen raashinkii iyo wixii yaalay oo dhan bay isku gubeen dhibaato baahsan oo naf iyo maalba leh ayaa halkaas ka dhacday de annagu waxaan ka cabanaynaa adduunka u sheegaynaa cid walba oo dhibaatada noocaasa oo dad maamul sheeganaya oo mas-uuliyad sheeganaya oo qayb dawladda kamid ahaan nahayne inay meeshii dhexdhexaad looga rabay in ay maaragtay dad shacaba oo dhexdhexaad ka noqon lahaayeen iyagu ay maaragtay ay inta soo raacaan dadkii gumaadeen sidaas ayaan ka camanaynaa adduunka inaan u sheegnay idaacadahan aan rabnaa. axmed faarax siyaad oo isna xubin ka ah odayaasha dhaqanka ee gobolka hiiraan wuxuu sheegay in gudoomiyaha gobolka hiiraan uu deegaanka u tegay inuu xaliyo colaada balse ay la kulmeen ciidamadii uu watay oo dagaalamaya sida uu sheegay wuxuuna ka codsaday madaxda sare ee hirshabeelle in si daacad ah wax looga qabto dagaalada ka dhacaya gobolka hiiraan. dariiska ay wataan waa ku cadaynaynaa waxaan kaloo ku cadaynaynaa ciidankan waxaa lagu soo waday markii hore ilaa nin xil hayo u ahay ninkaanu waxaa lagu soo waday dagaalada dawladda dadka colka oo kala dhexeeyo dadkaas wuxuu ahaa dad dawladda hadda waxa weye dawlad federaala oo ma ahan dawlad ay qola leedahay ma aysan ahayn ninkii madax ka ahaana hogaamiye wax walba oo meeshaas ka dhaca ciidankii marka saas ahay cadaynay u tahay in ay waxa dagaalamayay ciidamada hirshabeelle yihiin fariinta aan wadnaa waxay tahay dadka dawladda federaalka iyo caalamka dhan waxaan u sheegaynaa dadka xelalka loo dhiibaa oo dawladdu ay xelalka u dhiibane oo dawladda federaalka dadka noocaas oo kale in xelalka laga qaado oo aan dib dambana loogu dhiibin. maxamed cabdiweli tooxow